waa mahadsantahay horta Sonso way ku mahadsantahay workshopkan ama kulankan oo muhiimka ah oo ay nagu casuuntay waa uga mahadcelinaynaa arrinta laga hadlayo oo ku saabsan cyber security-ga convention-kan khuseeya ee Malabo Convention muxuu qiimo u leeyahay oo dalku u tarayaa ama bulshadu baahi ma u qabtaa jawaabteedu waa iska caddahay aad baa baahi loogu qabaa maxaa yeelay adduunku horumar uu samaynayaa teknolojiyadana horumar ay samaynaysaa horumar kastana waxa waaye caqabad ayaa la socda wax kastaba su-aasha ah soomaaliya ma u baahan tahay in ay heshiiskaas saxiixdo waxay ila tahay jawaabtu waa haa waa u baahan tahay aad baa loogu baahan yahay weliba deg deg ayaa loo baahan yahay in ay dowladda soomaaliyeed ratify garayso broseska kale ee loo baahan yahayna ay marto maxaa yeelay soomaaliya hadda aad bay u isticmaashaa qalabkan internetka aad bay u isticmaashaa wadamo badan oo afrika ah oo maxaan ku rahday dhaqaale ahaan iyo maxay maamul ahaanba aad nooga horeeya ayaan annaga uga horeynaa maxay ahayd isgaarsiinta iyo teknolojiyada isticmaalkeeda gaar ahaan internet marka baahidaas aad bay u badan tahay waxaan marka ku dhiirigelin lahaa civil society-gana inay wadaan advocacy-ga ay bilaabeenna ay sii wadaan dowladdana lagu dhiirigeliyey inay barnaamijkaas dhaqaajiyaan waayo aad buu muhiim ugu yahay mideeda kale sida aad og tihiin telefoonka hadda wuxuu ka mid yahay nolosha caadiga ayuu ka mid yahay yacni hadda soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay haddaadan telefoon wadanin koob shaah xataa ma gadan kartid bas ma raaci kartid buug ma iibsan kartid qalin ma iibsan kartid yacni tallaabo aad qaadi kartid ma jirto haddaadan telefoon wadanin yacni dadka masaakiinta oo dawarsada xataa hadda telefoonnay wataan marka yacni waxaad dareemaysaa inay noloshii oo dhan ku xiran tahay marka mar haddii noloshii ku xiran tahay haddee caqabadihiina way la socdaan soo maaha oo tuugii baa jira hackerskii baa jira oo heer walba leh oo heer dowladeed leh heer maxay ahayd kambani leh bangiyadii waa la dhacayaa dowladihii sirtooda lala baxayaa marka waxaan ku talinayaa oon ku beerinayaa codkayga in aad maaragta arrintaas loo sii ambaqaado oo la dedejiyo Malabo Convention dowladda soomaaliyeed in ay ku degdegto weliba oo ay ka daahday ayaan qabaa oo broseska kale loo baahan yahayna proposalada loo baahan yahay iyo dokumentiyada loo baahan yahay iyo ay gudbiso ayna ratify garayso